bisha December oo ah bisha ugu dambaysa sanadka ayaa waxay Soomaalida ku nool dalkani Koonfur Afrika u taqaanaa inay tahay bisha geerida ama bisha ugu dhibaatooyinka badan ee soo wajaha noloshooda. Soomaalida ku nool dalkani Koonfur Afrika ayaa waxay sheegeen in bil kasta ee December sanad walba marka uu dhamaanayo ay tahay xilliga ugu dhibaatooyinka badan ay la kulmaan dalkani Koonfur Afrika. Waxay sheegeen in bisha December ay tahay bisha ay nafsadooda ku waayaan, taas oo ay tahay sababa ay ku sheegeen in burcadda wadankani Koonfur Afrika ay u soo shaqo tagaan ama ay u soo boob tagaan hantidooda ay ku haystaan gudaha wadankani Koonfur Afrika. Burcadda u dhalatay dalkani Koonfur Afrika ayaa laba jibaara dhibaatooyinka iyo boobka ay ku hayaan hantida ganacsatada Soomaaliyeed marka la gaaro bisha December, taas oo lala xiriirinayo dabaaldegyada si ay uga qayb qaataan munaasabada ay u yaqaanaan Christmaska ee sanadka cusub ee mar waliba looga dabaaldego dalkani Koonfur Afrika. Ganacsatada Soomaaliyeed ayaa intooda badan waxay ka soo haajiraan goobaha dhibaatooyinka badan sida tuulooyinka ay burcadani ku badan yihiin. Waxaa durbaba bilowday dilalka loo geysanayo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada tuulooyinka ee sida aadka uga fog magaalooyinka waaweyn ay ku badan yihiin ciidamada booliska dalkani Koonfur Afrika. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Koonfur Afrika ayaa waxay baaq u jeedisay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool tuulooyinka fogfog inay nafsadooda ka taxadiraan ayna ka soo fogaadaan goobaha ay dhibaatooyinka ka dhalan karaan. Waxaa durbaba bilowday qaar ka mid ah deegaanooyin dhowr ah oo ku teedsan magaalada Cape Town oo ay boob ka bilaabeen qaar ka mid ah burcadda wadankani u dhalatay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa isa soo taraya dhibaatooyinka sanadkani gudihiisa loo geystay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Koonfur Afrika.